السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysaa idilkiin baa meel kasto aad joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo waa barnaamijka aynu ku soo aruurino macluumaadka wararka ugu waaweyn ee dunida aynu ku noolnahay dhacay saacadihii la soo dhaafay. Haddaba maanta waa Isniin taariikhduna waa 19 Febraayo sanadka 2024. barnaamijkuna waa barnaamijkeeni labaad. haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah muddo kadib dhowr maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay in wax weerar ay la kulmaan saldhigyada Mareykanka ee Suuriya ku yaala, laakiin fiidkii caawa ayaa la sheegay in qiiq fara badan uu ka baxay qaar ka mid ah saldhigyada Mareykanka ay ku leeyihiin bariga waddanka Suuriya. haddaba sidee wax u jiraan weeraradani xagee ka yimaadeen qasaaruhuse muxuu yahay gaaray Mareykanka? haddaba tafaasiil ku saabsan wixii laga qoray weerarkaas caawa ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa Israa'iil iyo Brazil oo meeshii ugu xumeyd kala tagay diblomaasiyadda, iyadoo safiirka ku sugan Israa'iil ee Brazil loo yeeray wuxuuna dib ugu laabtay waddankiisa iyadoo Israa'iilna ay u yeeratay safiirkeeda. haddaba maxaa la isku hayaa madaxweyne Lula da Silva iyo ra'iisul wasaare Netanyahu oo hawada fariimo isu mariyay? haddaba fariimahaas iyo wixii ay ku saabsanaayeen iyo waxa kala haysta Brazil iyo Israa'iil ayaanu barnaamijka iyana ku eegi doonaa. xuutiyiinta oo caawa la sheegayo inay mar kale weeraro cusub qaadeen. maanta waxay ahayd inay garaaceen markab xamuul oo Ingiriisku leeyahay, haddana waxaa la soo sheegayaa maraakiib Mareykanku leeyahay in ay la dhaceen madaafiic. xaaladda ayaa faraha ka sii socota oo meel xun gaaraysa badda cas. haddaba wararkii ugu dambeeyay waan idiin hayaa oo hadda aan idinla hadlayo soo dhacay oo laga qoray sheekooyinkaas. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah, waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. Ria Money Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka, waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahinta boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. kulan wanaagsan khiyaaray mar kale meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo. waxaa noo soo socda macluumaad iyo warar kale oo aanu isleenahay si weyn baad uga faa'iideysan doontaan. waxaan ku bilaabaynaa maalmihii la soo dhaafay lama maqlin wax wara oo ku saabsan saldhig Mareykanku leeyahay oo Suuriya ku yaala ama Ciraaq ku yaala oo nagta laga galiyay. warkooda lama haynin. way iska aamusta xaaladdu way deganeed. say u deganeed ayaa goor dhow wariyayaashu waxay ka soo hadlayaan, waxay leeyihiin waxaa weerar culus lagu qaaday oo sawaariiq ah mid ka mid ah saldhigyada Mareykanka. saldhigan marka maaha markii ugu horeysay oo la weeraro ogaada. dhowr jeer hore ayaa weeraryo noocaana lagu qaaday saldhigan. haddaba wararkii caawa laga qoray sheekadan ayaan idinla wadaagayaa. wakaaladda wararka ee Ruushka ee la yiraahdo Sputnik ayaa waxay leedahay waxaa soo cusboonaaday
weeraradii saaruuqda ahaa ama gantaalaha ahaa ee lala beegsanayay saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay bariga waddanka suuriya. haddaba warbixintu marka way sii socotay waxay leedahay waxaa soo cusboonaaday in la bartilmaameysado iyadoo la isticmaalayo sawaariikh saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay bariga waddanka suuriya. meelihii ugu dambeeyey ee la beersaday waxaa ka mid a saldhigga la yidhaahdo Konika ee isagu markaa gaaska iyo goobaha muhiimka ee laga soo saaro ah, wuxuuna ku yaalaa gobolka la yidhaahdo Deir ez-Zor. weerarka wuxuu imaanayaa ayay leedahay wakaalada wararka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wax weerara aan lagu qaadin saldhigyada maraykanka. haddaba wararka waxay sheegayaan 4 gantaal oo culus in saldhigga lala helay, waxaana la sheegay in qiiq fara badan uu ka baxay saldhigga, iyadoo saldhigga uu yahay meel istiraatiiji ah oo ay ku yaalaan ceelal shidaalka iyo gaaska iyo waxa kan oo uu maraykanku ka haysto suuriya. waxaana la sheegayaa in ilaa hadda maraykanku aanu wax wara ka soo saarin khasaare hadduuba ka soo gaaray weerarkaas askartiisa ku sugan saldhiggaas. marka saldhiggan iyo saldhigyada kaleba maalmahan waxaa leeyahay dhowr maalmood oo lasoo dhaafay wax weerara ma dhicin, xaaladdu way iska deganayd. waa tii maraykanka inta carooday weeraro culus uu qaaday, nimankii muqaawamada ahaa uu weeraray, markii askarta looga dilay maaragtay suuriya kuwa badan looga dhaawacay, handadaado badan uu sameeyey. hawshaas marka xoogaa waxaad mooday inay degtay. maalmihii lasoo dhaafay wax weerara ma maqlin. dhanka kale haddana ciraaq oo weerarada xooggeeda ka iman jireen kooxaha jooga iyo dowladda ciraaq ayaa iyaguna wada hadal yeeshay. waxay yidhaahdeen dowladda ciraaq, war annaga maraykanka wada hadalaa noo socda, si sharciyaa rabnaa waddanka inaan uga saarno, adduunyadii oo dhan aan ku dacweynaynaa, waxaan leenahay idinma rabno, naga baxa. markaa wada hadalladaasaan wadnaa, siyaasadaasaan wadnaa, annagaa saarayna leedahay xukuumadda ciraaq. marka nimankiinan muqaawamada ah moor wax sii garaacdaan isagu uu ka faa'iidaysanayaa. wada hadalladii uu iska dayna waa laysoo weeraray waxaasuu leeyahy. marka waxay yidhaahdeen qarracdan iyo waxa ninkan meeshiisa ha ku hayee adinka ha weerarina. marka waxaa leeyahay taas laftirkeedu waa loo aanaynayaa weerarada maaragtay maalmihii lasoo dhaafay dib u dhacay oo macnaha ciidamada maraykanka saldhigyadooda aan la weerarin. laakiin caawa sababta dib u soo celisa lama yaqaan, laakiin waa la ogaan doonaa saacadaha soo socda maadaama weerarku uu cusub yahay, caawana uu dhacay. marka wixii soo kordha maraykanka xaggooda iyo xataa kooxaha muqaawamada tafaasiil dheeraada hadday sheekadan ka bixiyaan waa lala socon doonaa. qodobka kale aan barnaamijka u galaynaa, israa'iil iyo adduunkii oo kale way sii kala dhimanayaan. maalin walba dalalaa sii baxaya, waddamaa sii go-aya, israa'iil cambaareynaya. israa'iil dadkii oo dhan hadda ka hor yimid ilaahay amarkiisa. waxaa ugu dambeeyay shirkii afrikaanka 37 dal ay ka qayb galeen oo lagu cambaareeyey oo la yidhi waxa kan wadaan waa xasuuq, waa saan, waa in maaragtay baaritaan lagu sameeyaa, waa afrikaankii waa saasay sameeyeen. marka meel walba oo shir lagu qabto sidaasaa adduunyadii oo dhan ay maaragtay qaramada midoobay marka laga soo tago golaha ammaanka oo niman veto leh ay fadhiyaan maahane, jimciyadda haddii la yimaado oo golaha intiisa kale qaramada midoobay inta dowladood oo kale waxay ku jiraan golaha loo dhan yahay la yiraahdaa. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay markii la keeno wax israa'iil ka dhana markiiba waa loo codeynaa. marka taa waxay muujinaysaa nacaybka dunidu inay kusii maaragtay israa'iil ay dunidii oo dhan sii nacayso. hadda marka waxaa ugu dambeeyey waxaa sii kala fogaaday israa'iil iyo Brazil furkay tuuratay. madaxweyne waxaa jooga la yidhaahdo Lula da Silva marka hadal uu jeediyey ayay israa'iil ka carootay. haddaba muxuu yidhi marka Lula da Silva? wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray waxaa leeyahay Brazil waxay la baxday safiirkeedii Tel Aviv joogay. wakaalada Reuters ayaa sheegtay in madaxweynaha Brazil Lula da Silva uu u yeertay safiirkiisii ka joogay Israa'iil. arrintan waxay timid kadib markii Lula da Silva uu ku eedeeyay maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay
إسرائيل إن أي قشي حسوق إن أي قشي وليبا حسوق أي غزة كجيشتي ولمدي هاي كي يهود اللي جوجوي مارتي دجال كي لبعض الدونك ومارتي سيدا يهود اللي بابية أو كله أي يجونا وحولي فلسطينيين تقبابيين هذا إسرائيل أي يدنا أريتها كعروتي وحي سميسي وزارة arrimaha dibadda إسرائيل iyaduna waxay u yeertay safiirkii Brazil ka joogay waxayna tiri waa inaad degdeg wadanka ku soo gashaa marka xaaladdu marka Brazil iyo Israa'iil kaliya ma dadka wax qoraya waxay leeyihiin sumcaddii Israa'iil ay ku lahayd caalamka down dhulka gashay way sii baaba'aysaa dawladaha sii tagaya South Africa meel ka xanaaqsan kuwa kala u soo hiiliyay maanta maxkamadda caalamiga ah iyo ayada Israa'iil isku dhaxsanaa xafiiska Netanyahu weerar ku qaaday maxkamadda caalamiga kadib maanta waxay dhageysanaysay konton dawladood oo adduunyada ah warbixin ay soo gudbiyeen oo maartay Israa'iil dhibaatada ay geysatay sida ay maartay gumaysi inay ku haysato Falastiin adduunyada ugu ogoshahay in kale waxaas dood saasa maanta ka bilaabatay muddo 7 ayna socon doontaa maxkamadda ayay ka socon doontaa marka doodii maanta markay bilaabatay xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu caaw war soo saar uu leeyahay maxkamaddan waxa ay wado wax ka jira male waa kan marka adduunyadii oo dhan lagu soo xarxaray nab alisi iyada kaligeeda soo hartay iyo macalinka weyn iyo xogaa xirta bas la socda inta kale waa ka soo horjeesteen marka waa yaab go'doon ay gashay go'doon ay ku jirtaa qodobka kale ee barnaamijka aanu ku falanqaynayno wuxuu yahay xuutiga hadaaya aadan uga waramay barnaamijkeeni koobaad xataa waxaan soo daynay codkii Cornel Yahya Sariic afayeenka kooxda jamaacada Ansaarullah magacooda waxa la yiraahdaa Ansaarullah marka xuutiyiinta macnahaas wuxuu ka yimid ninka kooxda madaxda u ah hogaamiyahooda waxa la yiraahdaa Abdulmalik al-Huuti la yiraahdaa marka magaca xuutiga ninkaas awoowihiisii meelahaas ka yimid iyo qolooyinkaas laakiin jamaacada iyo kooxda waxa la yiraahdaa Ansaarullah kooxda waxa la yiraahdaa Ansaarullah laakiin xuutiyiinta la iska yiraahdaa sidaas markay ayna u fahmno ninka kooxda madaxdu Abdulmalik al-Huuti loogu magac daray koox laakiin kooxda magac ay leedahay waxa la yiraahdaa Ansaarullah marka ninkaas Ansaarullah iga maanta wuxuu ka hadlay sida ay u galeen markabkii Ingiriiska ahaa barafiicda ay la dhaceen nagtasay ugu wadeen ilaa markabkii 20 shaqaalaha oo la socota laga qaaday markabkii isagoo sii degaya loogu wardabay inuu degay saacadan in kala warbaadiba shaqaalihii laga qaaday raggii wadaya laga qaaday barka cidii ugu salaawa kaas waa ku daayay badda hoosteeda laga baaraa barka meeshaas wixii uu waday iyo malaayga iyo xaaska iyo isku salaamay meeshaas hawshaas barka hay'ado halkaas loo joogtay hadda barka caawa inta newska ku jiray waxaan arkay hadana breaking news ama war degdeg ah maxaa dhacay waa saan u fiiriyay xuutiya taagan meeshaan ay wuxuu sameeyay hadana maraakiib oo Mareykan ku leeyahay caawa nagta laga geliyo waay yab marka waxa leeyahay waa baalinkii ugu badnaa ee ay garaacaan oo ay nagta ka geliyaan maraakiibta wadada maraysa hore ay kugu sheegay inay la socoteen oo mareeyaan markab kale meesha ma aadaayeen Mareykan iyo Ingiriis xoogaa karti iska baaray iyagana marba mid aan nag lagu hayaa dhagaa laga garaacaya waaya marka warkii ugu dambeeyay marka goordhow Al Jazeera lagu daabacay waxa leedahay xuutiyiintu waxay sheegeen 4 weerar inay fuliyeen maanta kaliya oo midna ay dajiyeen oo dhulka galay marka Ingiriisku leeyahay kaas waa sii horeeyay afayeenka marka xuutiyiinta jamaacada Ansaarullah Yahya Sariic ayaa wuxuu sheegay inay bartil maameedsadeen saacadihii la soo dhaafay 2 markab oo Mareykanku leeyahay iyagoo maraya Khaliij Cadan waxayna ku rideen sawaariiq dhowr ah ay ku rideen waxaana la sheegay in lala helay qaar kamid ah sawaariiqdaas haddaba wuxuu sheegay marka ninka la leeyahay Yahya Sariic waxaynu fulinay 2 weerar oo ka dhan ah
laba markab oo maraykanku leeyahay waxaynu xaqiijino leeyahay oo aan hubnaa in aynu gantaalihii aaridnay maraakiibtaas aan ku dhufanay marka guud ahaan 4 howlgal ayaanu sameynuu leeyahay maanta oo uu ku jiray howlgalka markabka ingiriisku leeyahay ee ay dejiyeen markii gantaalaha ay ku garaaceen nimanka marka hawshoodii halkaas maraysaa saacadihii la soo dhaafay 4 weerar la fuliyay 2 waa Mareykan midna waa Ingiriis kan kale ma aqaan meelu yahay 4 ku qoran laakiin meeshaan waxay loo sheegeen 2 Mareykan iyo mid Ingiriis kan kale wali lama sheegin kulli way ma doontaa sheekadiisa asaga marka 4 weerar marka 2 Mareykan ka marka waliba wuxuu leeyahay ninkan Yahya Sariica marka hore hadla kadib Mareykan iyo Ingiriis soo hadlaan waa idin sheegay hadda maanta wuxuu ka hadlayay markabkii la dejiyay maraykanka caawa ka hadleen waray soo saareen ay leeyihiin Ingiriiska markab xamuul uu leeyahay 2 gantaal lagu soo dhuftay mid waa la helay si fiican midka kale si fiican ugu ma dhicin laakiin 20 shaqaalaha laga qaaday oo la socoto dhan waa la badbaadi shaqaalihii kaliya laga badbaadi markabkii marka waa ku daayay ayagu marka hadda markay hadlaan بريتو كله أيام مريكا كو يجونا سو هذا الدوران أما عاو شغلة ده هذا مركا يسقوا حليه لبم مركب أو مريكا كله هاي أو حمول سيدا أيام كفة تحيسن عاو ولبا واهب ناوليه مباشر مركو يرادو 6 الله هلاي عتهول لقي في باه labadaas barka meel ay aadeen iyo xaaladooda waraakay ma door ayagana hadii Allah idmo barito wixii soo kordha arki doona marka dadka wax saadaaliye waxay leeyihiin badda cas waa lagu kala adkaaday maxaa lagu kala adkaaday badda cas ninkii xuuti ahaa badda cas waa loo daayay asagoo weeraradan qaadaya hadda waxa ku qornaa galabta in weeraro cusub cirka lagu qaaday oo Mareykanka iyo Ingiriisku ay mar kale weerareen لكن وحاس دك جلق موسينا واتيم ما أنت أسور هذي ديارات قارية ولح يتبد مليون أو دولار جوكتا مركا وحاسورنا مركا هالكاسي كسعودان حيصداس مركا هالكاسي وحي سوكر رأيدونا إشان كواهين دونا أدونك يورنا إشان كواهين هالكاس وماشا لقبقايو إن قرح وين وكرعو معناها الدنيا الدقال سدحاد أي أصبت إيران إيو هالكاس يحدي اسكو نفتان حالكم مركب مسهل لنا marka hawshaas wixii soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa barnaamijkeeni habeenimo inta ayaan ku soo gabagabaynayaa wixii tala iyo fakara qabtaan ku soo qora qaybta commentiska ha iloobinina inaad barnaamijka like gareysaan oo aad share gareysaan sidoo kale haddaad cusub tahay subscribe-ka ha iloobin youtube-ka haddaad cusub tahay facebook-gana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno haddii alla idin waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo